aan ku bilownay shalay waxaa magaalada muqdisho dib ugu soo laabtay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib muddo bilooyin ay ku xayirnaayeen dalka Turkiga. haddaba guddoonka baarlamaanka federaalka guddoomiyaashooda waa Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxaa la sheegayaa in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare ee ka dalbadeen in kama dambeys 27 bishan ay guddigu hor yimaadaan golaha waa baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ay cadeeyaan qaabka ay noqonayso doorashada dalka iyo waqtiga ay ku qaban karaan. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaan arrintan goordhow wax ka weydiiyay. annaga hadda oo guddoonkii soo laabtay oo labadii gole aqalkii sare iyo golaha shacabka oo ay shalay maantay ay yimaadeen alxamdulillah xildhibaano badan awal joogay kuwii kale hadda iyagana dhinaca Turkiga ku maqnaa bari iyagana ay soo galeen baarlamaanka inuu noo furmo inkastoo nidaamkii annaga caadiyan oo aan nala garanayseen oo xaadirida iyo maantay ka qaybgalka hanaankii annaga awalna lagu yaqiin mid ka duwan oo hadda qaabkan maantay video maantay maantay la isticmaalayo qaabtaasi kulley wax nagu cusub kulley waa iska kulley ayagana tababar unbaa la heli doonaa oo ay ku howlan yihiin qaab ahaan la diyaariyey musaafirayo xogeyntii iyo doorayaashii marka shuruucdii awal qabyada naga ahayd kuwii ugu darnaa ee doorashooyinka oo dadka bari Soomaaliyeed u dhagtaanayeen caalamkooda kuwaasaan rabnaa inaan gudaha dalna mar alaala marka baarlamaanka naloo furo ama albaabadiisa naloo ballanqabo. waayo xildhibaane waxaa igu maqaalaha in guddoonka baarlamaanka federaalka iyo guddiga doorashooyinka ka dalbadeen in 27 bishan ay cadeeyaan qaabka ay noqonayso doorashada dalka isla markaana ay baarlamaanka hor yimaadaan marka arrintaasi maxaa ka jira? aad iyo aad maxaa yeelay guddiga hawshiisii isaga maartay madax banaanaa waxyaabihii ayaga tala ay hayaan maadaama waqtigiina aad maanta qaadiga uu soo saaray yahay umadiina wax badan ay naga sugayso oo qaabkii doorashada iyo noocay noqon lahayd maadaama wax badan arrintaasi la sugayay in baarlamaanka talaabooyinka ugu horeeyay iyo waxyaabaha laga filan karo inuu ka hadlo oo uu ka soo saaro go'aaman marka maadaama hawshani guddigaas isaga marka hore loo igmaday wixii ay ka yiraahdaan in baarlamaanka uu dhageysto ayaa aad loo danaynaya hadduu yahay. kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka isla markaana ka hadlayay guddoonka golaha waa guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo guddiga doorashooyinka ka dalbaday in ay cadeeyaan suurtagalnimada doorasho ay ku qaban karaan kama dambeys 27 bishan. waxaa xusid mudan in weli aanu furmin kalfadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qorshuhu ahaa inuu furmo dabayaaqadii bishaynu soo dhaafnay ee Abriil hase ahaatee guddoonka ayaa warqad ay si wada jir u soo saareen waxay dib u dhigeen in baarlamaanka waqtigii uu furmi lahaa la baajiyay inkastoo aanay iyagu shaacin waqtiga rasmiga ah ee baarlamaanku uu furmaya hase ahaatee shalay gelinkii dambe ayay soo gaareen iyaga iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magaalada caasimadda Muqdisho. imikana Puntland waan xal loogu raadinaya khilaafka sii xoogaysanaya u dhaxeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash ayaa ka socda magaalada Garowe ee maamulka Puntland. khilaaf ka bilowday magacaabista taliyaha madaxtooyada iyo ku-xigeenkiisa oo soo kala dhexgalay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa markii uu si toos ah u soo shaxbaxay khilaafkaasi waxa bilowday waan lagu dhexdhexaadinayo mas'uuliyiinta ugu sarreysa madaxtooyada Puntland. xildhibaano siyaasiyiin miisaan weyn ku dhexle gudaha Puntland iyo isma ku sugan magaalada Garowe ayaa wararka laga helayo magaaladaasi waxa ay sheegayaan in ay ku howlan yihiin sidii ay ku xalin lahaayeen khilaafkan cusub ee ka dhex taagan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cilmi Cismaan Karaash. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa warqad qoraal oo xafiiskiisa dhawaan ka soo baxday isla markaana nuqulo kamid ah warbaahinta loo qeybiyay waxa uu ku sheegay in aan lagala tashan haba yaraatee magacaabista taliyaha madaxtooyada iyo ku-xigeenkiisa isla markaana digreetada uu soo saaray uu ku burinayay magacaabista xubnaha mas'uuliyiintaasi. dhinacyada ku howlan xalinta muranka Axmed Karaash iyo Siciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegayaa in ay mid kasta daraftiisa ay telefoon ugala hadleen si loo xaliyo khilaafka taagan balse ma jirto ilaa iyo haatan wax wada hadal ah oo dhex maray labada mas'uul.
mudanayaal ka tirsan baarlamanka puntland ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay socdaan dadaallo wax ku ool ah oo lagu dhammaynayo khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta waxaana ay ku tilmaameen mid aysan puntland xamili karin xilligan maadaama arrimo amni cudurka covid-19 xaaladda fatahaadda qardho la dagaalanka ayaxa iyo cayayaanka iminka lagu jiro markan haddaan eegno magaalada beledweyne daadadka magaaladaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay sii xoogaysanayaan iyaga oo qaaday dad danyara oo saarnaa gaari dameer waxaana daadadka ay qaadeen hal qof oo sababay inay dhinto qofkaasi sida oo kale waxaa lasoo badbaadiyey 4 kale oo gaari dameerka saarnaa. axmedow aad iyo aad umahadsan tahay. waxaa sii kordhaysa culayska biyaha webiga shabeelle buundada loo yaqaano buunda koowaad oo saakay laga soo sheegayo xaaladeeda inay aad u culus tahay oo maritaanka dadku markaasi uu yaraaday iyo gaadiidkaba wararkaana ka helay deegaankaas waxaa laga sheegay hal qof inuu ku geeriyooday oo daadadka ay la tageen oo lagu laayahay 4 qofna laga soo badbaadiyey. waxaa sidoo kale lagu laayahay gaarigii dameerka oo iyagana buundada ay biyaha ka soconay xoogan ay qaadeen. habeenkii xalay ayaa waxaa soo xoogaysay biyaha ciro kala duwan oo la sameeyey dhanka Ethiopia deegaanka Bacalley xadka gobolkii oo la wadaago ismaamulka Soomaaliya dalka Ethiopia deegaanka Defow halka loo yaqaano dal cusbo ukur waxaa la sheegay waa sudhacad u ballaaran inuu webiga sameeyey inkastoo markaa biyaha ka soo laabtay deegaanadaas xadka ayaa waxay haatan ku soo qulqulayaan dhanka iyo gobolka Hiiraan oo webiga Shabeelle uu bartamaha uu ka maro. marka maalmaha soo socda waxaa la filayaa haddii Allah uu ogolaado isbedel oo sudhac ballaaran ay sameyn doonaan biyaha insha Allah. marka waa sidii hadda xaaladda dadka magaalada beledweyne ka barakacay ee ku nool duuleedka magaalada biyuhusa sidee bay u gaareen guud ahaan xaafadaha magaalada beledweyne? axmedow waa su-aal muhiim ah. guud ahaan biyuhu waxay markaa si siman ay ugu jiraan magaalada beledweyne goobihii ganacsiga aad ay saameyn ugu yeesheen. waxaad arkaysaa ganacsiga magaalada beledweyne haweenka khudaarta kala duwan iibiyo ama haweenka iibinayo hilibka ama kuwa jaadka iibinayo dhammaantood ay dul fadhiyaan biyo ama kuwa dul ganacsanayaan. gaadiid walba ama meel walba magaalada beledweyne biyo haatan way soo gaareen inkastoo maalmaha foodin lagu soo haysta la filayo oo sudhac inuu sameeyo webiga. dhanka kale nolosha dadka ka barakacay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee gaaray deegaanka ceel jaalle exit garoonka hore diyaaradaha xaafadda Walwadaag deegaanka shirka oo dhanka waqooyi magaalada beledweyne weli ma jirto waa gurmad oo gaaray dadka iyaga fatahaadu ay saamaysay. dadka deegaanka ceel jaalle waxaa u sii dheer intaa biyo yaraan kulayl ba'an halkaas ay joogaan haween iyo dad waayeela caruur ay joogaan. jubbaland ayaa xukun dila ku riday askari xalay Kismaayo ku dilay askari kale xilli isla maanta xukunkaasi lagu fuliyay kadib markii habeenkii xalay ahaa uu Maxamuud Cabdullaahi oo loo yaqaano al-Sacuudi uu magaalada Kismaayo gaar ahaan agagaarka madaxtooyada uu ku dilay askari ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada ayaa waxa maanta kiiskiisa u fariisatay maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana askariga dilka geystay kadib dood dheer maxkamadda iyo marqaatiyaal ay la hor keenay horteeda ay ka qireen in si bareer ah uu askariga kale u dilay ayaa waxa maanta lagu fuliyay dilka qisaasta marxuumkii hore u dilay. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa iyada oo ka duulaysa ilaalinta iyo sidoo kale nabadda deegaanada Jubbaland ayaa waxa ay dilka askarigaasi ay u tirsatay qaraarka tirsigiisu yahay 134 taas oo ku saabsan ilaalinta amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedka waxaana dilka goobta qisaasta uu ka dhacay ku sugnaa ehelada marxuumka kale ee habeenkii xalay ahaa lagu dilay magaalada Kismaayo. degdega kiiskan lagu fuliyay ee dilka ama qisaasta marxuumka kale ayaa sida aan wararka ku helino waxa amarka bixiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland taas oo uu ku sheegay in si degdeg ah loo fuliyo qisaasta dilka marxuumkii hore ee loo dilay. Somaliland ayaa waxay maanta shaacisay 16 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah iyadoo oo tirada dhimashaduna ay sii korortay waxaana Somaliland ay sheegtay in cudurka corona gudaha deegaanada Somaliland ay ugu geeriyoodeen 8 ruux. wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday kiisas badan oo ah xanuunka dilaaga ee COVID-19 19 qof ayaa 48 saac la soo dhaafay laga helay deegaanada Somaliland oo qaba xanuunkan. sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 2 qof ay u geeriyoodeen xanuunkan. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Xirgeeyo ayaa sheegay in dad horey loo karantiilay kana yimid dalka Djibouti 6 kamid ah laga helay xanuunkan.
48 saacadood ee u dambeeyay waxa soo kordhay bukaano ah 19 bukaan oo ku soo kordhay xaaladaheennii hore marka 19 qof oo cusub ayaa laga helay 48 saacadood ee u dambeeyay taasi waxa ay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka laga helay ama tirada guud ee xanuunka laga helay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan 87 qof ayaa laga helay xanuunka 19 qof ee cusub ee marka la eego meelaha ay ka kala yimaadeen dadkani waxay ka yimaadeen bukaanadani 13 qof waxa ay degan yihiin gobolka Maroodi Jeex 6 qofna waxa ay joogaan ama laga helay gobolka Awdal dadkaasi waxa ku jira 6 qof oo ah dadkii ka yimid dhawaan waddanka Djibouti ee karantiinka ku jiray 6 qof oo ka mid ah ayaa laga helay xanuunka marka la eego dadka 12 qof oo ka mid yihiin waa rag halka 8 qof oo ka mid yihiina ay haween yihiin tirada guud dadka xanuunkan laga helay Somaliland ayaa gaartay 87 qof halka dhimashada ay marayso 8 ruux dadka xanuunkan laga helay ayaa kala jooga magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama Beledweyne haddaan u laabanana sarakac ayaa ku yimid qiimaha qudaarta suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib daadad qaaday beerihii qudaarta sarakac ballaaran ay ku yimaaday qiimaha qudaarta suuqyada magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa loo aaneynaya taada saameynta ay ku yeelatay dadka beeraleyda ama dhulbeereedka ku taysan hareeraha webiga Shabeelle ay gooyeen dhamaanba qudaarta sida weyn biyo ay baabiyeen ayaa waxa kamid ah dalagyada ay kamid yihiin yaanyada bagalka kabsarta barbarooniga babayga iyadoo qudaarta qaad aan laga helayninba magaalada Beledweyne suuqeeda halka qudaarta leerada qiimadeedu uu yahay mid aad u sareeya taasoo qudaarta lagu soo gaarsiiyo dooman ka soo qaada beeraha taa oo keeni karta in qiimaha qudaarta lagu kordhiyo qiimihii doonta lagu soo qaaday ee lagu keenay magaalada Beledweyne sida ay sheegeen haweenkii iibiyo qudaarta iyo kuwa iibsadaba qudaarta dadka doonay ku keena doonta markay ku keenaan macna qaaliinay maxaa sababay qudaarta qaali aad gadaan qudaarta macna awal kordoon keen jiray doona lagu keena doonta marka lagu keena qaali ka dhiga anigana qaali markay ka dhiga anigana qaali aan lacag siisaan qaali ka sii dhignaa dadkina macna qaaligaas waa diidan yihiin wixiina ma la gooy karo wixiina ma laga tigi karo wax la sameeyo ma la yaqaan ولا شيء سنتي ماس حبتك شيء واحد على قدر جري حتى على قدر حبتك شيء يدرس تلوات سنتي على قدر عين هذا كردي ولا خلاص ما ولا هلا وسيرو كبسرت عكمد كبسرتي وشنت سنتي لقدر هذا لوات سنتي على قدر لواتين كسنتي وزيت أساس ما وين يسبو باي سيرو $1 يبرو مرو يا محل قدر جري صدق سنتي لوات سنتي بشيش نسكيلة محل قدر جري تلوات $1 على قدر جري تلوات سنتي هذا محل قطع $1 يبرو قطي sanad waliba marka ay dhacdo fatahaada webiga Shabeelle ayaa sarakac u ballaaran waxa laga dareemayaa qiimaha qudaarta suuqyada magaalada Beledweyne iyadoo qudaarta qaar biyo ay la tagaan kuwa ka badbaadana fatahaada biyaha webiga Shabeelle mararka qaar ay dhacdo in aan la soo gaarsiin waayo magaalada wadooyinkan ay ka xirmaan doomaha soo qaadi lahaana qiimahooda ay ku heshiin waayaan doonleyda iyo dadka beeraleyda taasoo keeni karta in khasaare aysan ka soo kaban ay ka soo gaarto dadka beeraleyda sade miro indhayare oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana sidoo kale ka mid ah xubnaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa beeniyay in Silvia Romania oo ahayd gabar Talyaaniga isla markaana muddo lagu heystay Soomaaliya lana sii daayay ee Al-Shabaab iyo sirdoonka caalamka ay ku kala wareegeen beer oo isagu lahaa oo ku taala duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Axmed Maxamed Ibrahim ayaa ka waramaya kadib markii warbaahinta qaar ay daabaceen in Silvia Romano oo ahayd gabar u dhalatay dalka Talyaaniga isla markaana maxbuus ahaan ay u haysteen Al-Shabaab in lagu kala wareegay si deesmadeeda beerta Mire Cismaan Warsame Mire Indhayare oo ku taala degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose Mire Indhayare oo ah gudoomiyaha qaybta beeraha ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed isla markaana kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed maruu maanta warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inaysan jirin cid beertiisa ku kala wareegtay Silvia Romano hadalkaana uu yahay waxba kama jiraan hadal been abuura oo la leeyahay
beerta mare indhayare ayaa lagu kala wareejiyey gabadhii talyaaniga iyo barnaamijyadeedii sirdoonnadu halkaasay wax ku kala wareejiyeen wax ka jirahay male wax lagu kala wareejiyena male wax agagaarkeeda xataa lagu wareejiyey male beertayda afgooyay ku taallaa waxayna u jirtaa kilomitir iyo bar magaaladu waa isu muuqdaan sidaas darteed ujeeddadaydu waxay ahayd inaan hadalkaas caddeeyo inuu yahay hadal been abuura oo aan waxba ka jirin aad iyo aadba ugu xumahay in waxaan la hubin warbaahinta loo gudbiyo aadan ugu xumahay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay inuusan weligii shaqo ku yeelin arrimaha siyaasadda Soomaaliya uuna doonayo shakhsiyaadka daabacay in beertiisa wax lagu kala wareegay ay raaligelin bixiyaan oo aan siyaasad iyo waxaas ka shaqayn inaan hayeen caddaynaya barnaamijkaasna dadkii sheegay inaan carabka ku dhufto ma rabo websaydyada ku qoran yihiin laakiin inay ku qaldameen ay ku fududaadeen mujtamaca Soomaaliyeed aan u sheego oo la ogaado arrintaas inay been tahay waxaan u baahanahay dadka arrimahaas qoray oo baahiyey inay raaligelin ka bixiyaan hadda ka bacdina ay waxaysan hubin aysan ka sheegin sideesmada Silvia Romano ayaa waxa ka qayb qaatay sida la sheegay sirdoonada Talyaaniga iyo Turkiga maalmo ka horna waxaa dib loogu celiyay dalkeeda guddiga doorashooyinka dalka Ethiopia ayaa wax ay warqadii ruqsada ee xisbinimo ay kala noqdeen 13 xisbi siyaasadeed oo horey loo diiwaan geliyay xisbiyadaasi oo badankood shuruudihii hore u yeelay guddiga doorashooyinka Ethiopia lagu diiwaan geliyay ayuu guddigu dib u habeyn ku sameeyay qaabka xisbiyada loo diiwaan gelinayay ka hor inta aan la gaarin doorashada dalkaasi ka dhacaysay wuxuu guddigu sheegay in 13 kamid ah xisbiyadaasi shuruudaha xisbinimo aysan buuxin kadibna ruqsadii xisbinimo lagala noqday sidoo kalena 14 xisbi oo guddiga doorashooyinka uu ugu yeeray inay soo dhameystiraan dukumeentiyada looga baahnaa oo aan ka soo jawaabin u yeeritaanka guddiga ayaa sidoo kale ruqsadda lagala noqday guddiga doorashooyinka Ethiopia wuxuu inta ku daray in 106 xisbi siyaasadeed oo dalka Ethiopia ka jira 76 kamida ay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa isla markaana aqoonsiga xisbiyanimo loo cusboonaysiiyay laba xisbi siyaasadeed oo iyaguna dhibaato gudahooda ay ka jirtay awgeed ayaan la siinin warqadda waxaana loo qabtay inay ku soo dhameystiraan shuruudaha muddo cayiman xisbiyada siyaasadeed ee ruqsadda xisbinimo lagala noqday ayaa waxaa loo sheegay in gebi ahaantoodba la baabi'iyay